taariikhdu markay ahayd 11 bishii 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex أحمد محمد هاشم عرب 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kala ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kala ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 مرحوم عمر محمد أبيكر لابو مرحوم سرية قوتو بول إسماعيل أحمد إسماعيل مكيالو تاريخ المركز لسدي لاتنكي بشي تمنا لابوكن لحيو طبعا صدح تاريخ تضوية لاتنكي بشي أفرال لابوكن تضوية طبعا مرحوم أكي سرية قوتو محمود حاج علي أفر تاريخ المركز هيد أفر لاتنكي بشي سقال لابوكن تضوية طبعا مرحوم أكي سرية قوتو حوغة عبد الله محمد شيخ حسن قروروح iyo askari ilaalow ahaa lagu magacaabay marxuum X double xooga Maxamed Bila Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16 bishii 2018 marxuum Cabdul Qaadir Daahir Deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20 bishii 2019 مرحوم محمد عبد الرحمن محمود oo ahaa ku xigeenka xirlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 11 bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedeysanayaasha 19 bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq